kusoo dhawaada warka maqal news waxa aad u sii kordhay qasaaraha dadka rayidka ka soo gaaray rasaas ay ciidamada booliska ku tuureen dadii isugu soo baxay shalay gelinkii dambe magaalooyinka Linköping iyo Norrköping oo ka soo horjeeday nin kitaab quraan ku gubay magaalooyinkaasi waxaana xalay maqribkii ilaa xalay fiidnimada la sheegay in ninkaasi uu magaalada Malmö sidoo kale ku gubay kitaab quraan kariimka wasiirka cadaaladda dalkan Morgan Johansson ayaa sheegay in ciidankii aad u daciifsan yihiin marka loo barbardhigo 20 sano ee la soo dhaafay dadka ka careysan falkaasi ayaa aad uga soo baxay magaalooyinkaasi waaweyn ayadoon ay ku gubayaan gawaarida booliska iyo kuwa rayidka oo aan isu aabayeeleenin wax walba oo meesha yaalo xisbiyada dhanka midig ayaa aad ugu qanacsan sida ay wax u dhacayaan ayagoona muujinaya in ay tahay calaamad ah in muslimiinta yihiin dad aanan lala noolaan karin waa sida ay qabaan dadka falanqeeya siyaasadda dalkani ugu dambeyn magaalada Stockholm ayaa la sheegay in lagu dilo qof dhalinyaro ah booliska ayaanan ka hadlin qofkani balse xaaladda ayaa ahaata mid degan wararkii waa naginta nabadgelyo